بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواada muuqaal yar oo kooban aynu kaga hadlayno hees faneeda waa heesaha inta badan oo la socda miisiga iyo naaxiyada goonida ah heesahaasi waa saddex nooc ama saddex xab ay ku yimaadaan wax riwaayad ku jira wax mala awaala iyo wax dhacdo iyo taariikh salka ku haya waxa u badan heesaha riwaayadaha ku jira waxa kale oo iyaguna ku xiga kuwa mala awaalka waxa u yar kuwa sababta leh sababtaas ha noqoto waxa la abuurka heesta alifay ka soo go'ay ama dhacdo la soo gudboonaatay qofku goobjoog ka ahaa oo saameysay labada hab ayay sababtu ku timaadaa heesta aynu kalkan idinla wadaagi doono erayadeeda waxaa alifay maxamed ibraahim warsame hadraawi laxankana ama naaxiyada cudoonna waxaa saaray jaamac saleebaan tubeec waxaana ku luuqeeya maxamed nuur gareeg hilaadii 1966 ilaa 1967 waxaa cadan iyo dalweynaha ka socday kacdoonkii lagaga soo horjeeday Ingiriiska dad badan oo Soomaaliyiin ay kaga soo qaxeen hadraawi wuxuu ka mid ahaa dadkii soo qaxay ee la oran jiray xabadi keentayga isaga iyo jaalayaal ay wada socdeen ayaa dalka yimi kadibna xamar bay wada aadeen niman sukaabay ahaayeen qol bay wada kareysteen qiyaasta 4 nin baa lagu sheegaa hadraawishan ku yahay guriga ay degan yihiin ka soo horjeeda waxa deganeed inaan Ilaahay ku manaystay qurux iyo bilic iyo haybad gabdheed inta ay leedahay oo dhan aad bay nimankaasi gabadhii u wada caashaqeen nin kastaaba wuxuu ku dadaali jiray dalool yar oo daaqada aqalka ku taala inuu ka eego oo daaqada yar daloolkeedu wuxuu ahaa mashquul marba ninba u soo dheereyn jiray soo gabadha u yara daawado hadraawi dabeeta sheekada si dhow u la socday 4 nin daaqada tuban ee wada eegaya gabadhaas halka nuxurka hadaba sheekadu ku jirta inuu dhaadhacnaa maalmaha kamidaba iyagoo suuqa ka maqan magaalada bahal roobi ku yurursada raggii guriga joogay ayaa soo yaacay oo waxay ku soo yaaceen dhankii guriga markii ay gurigii soo gaareen ba waxay arkeen gurigii intuu daadku sabaynayo iyo koodii uu hadal daayay koodii kuma leexanakii gabadha ayay surwaalada laabteen markaas ay ka dawdabeen biyihii wadnaa aqalka gudihiisa hadraawi baa goor dambe yimi wuxuu arkay qolkii ay deganaayeen oo daadku daaqadaha marayo alaabtoodana ay dul sabaynayso iyadoo qoyday docda kale uu jaleecay sawaa nimankiiyo halgan iyo hawl adag ugu jira inay biyaha ka dhoraan guriga kale aad buu yaaba dabeeto xiisayntii hore uu ogaa iyo biyaha ay dhorayaan ee imika ayay ahaatay inuu ka sameeyo hees buu dabeetaa leefaleeraa suleekha heestii waxaa lagu daray riwaayad loolan jiray reerba oo yaa kule inantii dabeeta heestii markii ay dhageysatay habeenkii riwaayadii daawatay ayay heestii taabatay gurigii bay uga sii horeysay iyadoo kaabadii fadhida bay tiri hadaba hal ay siiyay nin hal ay siiyo mar haddii jacaylka iyo wanaagga la hayaa heerkan gaarsiisan yahay kii calafku ku sidkay baa la raaciyay gabadha raas weyn bay noqotay ninkii iyo gabadhina way isku baraareen ilaahayna barwaaqo gali heestu waxa oranaysaa Suleekha yaragaaga nafta wuu sameersiiso saddex bay ku qadaayay ka goyni salaanta ana daaqada yar ka eegi jireen ayaa u ahayd jal iyo xumad jabin ay iskaga reebaan xiisaha iyo lahashada faraha badan ee yeelanaysa intaas aynu ku soo meelinaa muuqaalkeena yar kooban inta aynu halkan oo kale ku kulmayno waxaan iskaga tagaynaa nabaday